asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad naga daawanaysaan. daawadayaal intiinii la socotay qaybihii hore ee barnaamijka gaarka ah ee uu idiin soo diyaariyo istuudiyahan telefishinka qaranka ee magaalada Burco ee la magac baxay dal qarsoon iyo duruufaha ku xeeran dad ku nool ayaa waxaanu kaga hadalay ilaa iyo 5 qaybood oo ku jihaysan baahida iyo duruufaha ku gadaaman deegaanka Guban iyo Xeeb oo ah sabab juqraafi ahaan ka tirsan gobolka Saaxil dhinaciisa bari isla markaana xuduud la walaaga gobolada Sanaag iyo Togdheer. haddii aan idin xusuusino oo aan idinka siino deegaankan Guban iyo Xeeb sawir ku saabsan jihooyinka rasmiga ah ee uu la leeyahay goboladan aan soo sheegnay ayaa waxa uu dhinaciisa waqooyi ka galaa badda cas iyadoo dhinaca koonfureedna uu xuduudiisu saaran tahay buuraleyda caanka ah ee loo yaqaan Mariye oo kaga jihaysan dhinacaasi gobolka Togdheer halka jihada barina uu ka saaran yahay gobolka Sanaag. baaxadda deegaanadani waxa ay qiyaas ahaan lagu qiyaasi karaa ilaa iyo 360 kiiloomitir oo wareeg ah. waa dal ay haysato duruufka kan oo isugu jirta dhinacyada nolosha iyo adeegyada ama bakaabayaasha nolosha oo dhan, taasi oo duruuftan lafdhabarkeedu yahay wada la'aan. mushkiladan oo gabi ahaanba daciifisay hab nololeedkii ay bulsho lahayd. qaybihii hore ee barnaamijkan dal qarsoon oo aad ka heli kartaan barta la iska daawado ee YouTube-ka ayaanu inta badan kaga hadalay dhibaatooyinka iyo duruufaha ku xeeran bulshadaasi, balse qayladhaan iyo orod badan kadib waxaa deegaankaasi ka bilaabmay howlgallo lagu badbaadinayo nolosha bulshadan xayiran. haddaba qaybtan ee barnaamijkana waxaanu daboolka kaga qaadi doonaa falanqayn iyo xogagaal u raadin su-aasha barnaamijkani uu ku bilaabmay ee ku saabsan dal qarsoon maxaa u qabsoomay muddo 2 sano ka bacdi. guddiyo kala duwan oo isugu dhafan gobolada Saaxil, Togdheer iyo Maroodi Jeex oo ay hormuud u yihiin maamulka gobolka Saaxil iyo waxyihiisa kala duwan isla markaana ay ku lamaan yihiin qurbo joogga iyo gudaha shacabka goboladaasi waxa ay tallaabadii horeba ku abuureen fikrad lagu dhisayo waddo dhererkeedu dhan yahay 150 kiiloomitir oo isku xidhaysa degmada Berbera, degmooyinka Xagal, Laasciile iyo ugu dambeyn tuulada Raaribuul oo ah jihada ay dhulkani uu ka galo agagaarka gobolka Sanaag. dhaqdhaqaaqan wadada ee ay abuureen guddiyadan kala duwan ayaa waxa soo raacay adeegyo teelteela oo isugu jira weelal biyood, goobo caafimaad iyo waliba dugsiyo laga hirgeliyay goobo ka mid ah magaalooyinka ku yaala jiidaasi. wadadan sababta u noqotay dhaqdhaqaaqa lagu arki karo wadciga iyo waayaha qaybo ka mid ah bulshadan ayaa waxa horey u ahayd jid rafaad badan oo isugu jira togag, dooxyo, buuraley iyo bacaad guurguura oo ay ku asmaan dadka iyo gaadiidkuba, iyadoo oo gaadiidka keliya ee hawaysan kara halkaasi uu yahay gaadiidka yaryar ee loo yaqaano four wheel drive ee casriga ah oo isaga laftiisu dhib iyo rafaad kala kulma siduu uga gudbi lahaa bacaadka iyo dooxyada dixda ah. haddaba injineer Faarax Xuseen waa aqoon-yahan ku takhasusay samaynta wadooyinka kaasoo hormuud u ahaa howlgalkan wadada, waxaana uu sawir xusuusin ah uu ka bixinayaa xaaladda meesha taal iyo sida xal loogu heli karo in laga furdaamiyo mushkiladda haysata deegaankaasi. wadada Berbera Raaribuul oo ah wada dhuleeda oo baryahan dambeba hawsheedu runtii ay taagnayd oo
maamulka Somaliland iyo shacabka Somaliland ba mid gudaha jooga iyo mid dibadda jooga uu ka qayb qaatay waa dhererkeedu waxa weeyaan 150 kilomitir isugeynteedu weeyaan wadadaas oo wada dhuleeda oo wada soo jiri jirto taariikh ahaan taariikhdii ilaa waqtigii isticmaalkii jiri jirto la mari jiray waxa xidhay goobo fara badan oo sida toga iminka aynu ka soo talawnay ee biyo guure la mid ah ayaa xidhay oo u diiday in isu socodkii gaadiidka iyo isu gudubkii dadka ku nool jiida iyo maamulka berbera ay isgaadhaan sida xaqiiqdu ay tahay dareenka wadadan uu ku bilaabmay waa dareen bini'aadanimo markii la ogaaday in aan ummadda halkaa ku nool oo dhibaataysan aanay la soo xiriiri karaynin maamulkeedii iyo ummaddii intii kale oo dhibaatooyin fara badan oo aynu hadhowto fadhi kaga hadli doonno ama hore looga hadlay ay soo mareen ama jiraan ayaa waxa la go'aansaday oo dad yacni heer bini'aadanimo weligeedba way jiri jirtay laakiin u kacniinka loo kacay ee iminka ay shaqadani ku socoto wuxuu ku salaysan yahay in waddadaa la furo oo laga dhigo meel gaadiidka caadigii ay mari karaan goobaha ugu dhibta badan ee ay waddadani ka bilaabanto marka laga bilaabo magaalada berbera waxaa ka mida dooxa biyo guure oo dhinaca waqooyi uga roga biyaha badweynta cas waa tog khaarajiyey gaadiidka waaweyn ee u adeega ama adeega u geyn lahaa dadweynaha ku nool deegaanada guban iyo xeeb oo haatan ku adeegta gaadiidka awrta waxa uu baaxadiisu dhan yahay togaasi ku dhowaad 2 kilomitir waa doox bacaad iyo dhoobo isku barkan kaasi oo xataa aanay si sahlan ku hawaysan karin maritaankiisa gaadiidka aan soo xusnay ee 4-wheel drive-ku balse xilligan waxa uu ka mid yahay meelaha lagu guulaystay in 80% la xalilo mushkiladiisa xilligan waxaa si raaxa u mari kara gaadiidka waaweyn ee raran iyo kuwa yaryarba waxaana qayb ka yahay horumarka laga sameeyey waddadaasi iyadoo gaadiidka macdaadka ay ku soo dumiyeen togaasi gudihiisa buuro taagnaa oo hadda dhexdiisa la dhigay waa kan mar labaad injineer Faarax Xuseen oo isbarbar dhigaya siday xaaladdu ahayd markii hore iyo xilligan waxa isbedelay toganaynu joognay biyo guure waa meesha ugu adag ayay tahay ee laga bilaabo waddadaasi ay ka bilaabanto inteeda dhibaatada lihi ee berbere ugu xigta berigii hore waddadu waxay mari jirtay halkaa iminka aan farta ku fiiqayo ee xagga koonfurta halkan waxaanay ahayd meel ilaa 300-400 mitir ah meeshii way xidhantay oo beera yaa xidhay togiina godad badan buu ka yeeshay dabeedna waxaa laga maarmi waayey markii maamul iyo sahan iyo degaankii laga wada tashaday halkan aynu marayno in la soo mariyo oo inta doox uu yahay 1300 mitir labada darafna 100 mitir iyo 100 mitir marka isugeynteeda waa 1500 mitir halkaa awood dhaqaale oo ama bridge laga sameeyo ama wadda jiifta oo laamiya laga sameeyo runtii waa la waayey mashruuca waxa lagu wadaa waa iska wax u qabso oo wax dadka jeebkiisu ay bixiyeen wixii dawladda gobolka wixii dawladda sare wixii la helo tabaruc ayaa lagu wadaa tabarucaas ay ku socotaa iyo wixii dadka qurba joogi ay ku soo sadaqadaystaan ayaa lagu wadaa markaa way suuroobi weyday in ama laami laga dhigo ama dhagax laga dhigo 1500 mitir oo tog keliya way suuroobi weyday markaa sidaa awgeed fikirka loo fikiray waxay noqotay in dhulkii 2 mitir la gooyo oo 2 mitirba ciid una ah oo la dhaafi kari waayo ciidii intaa in lagu bedelo material kale lagu bedelo oo dhagax iyo carakaawo iyo wixii la heli karo dhulka la siman oo dhulka ku jira si loo maro wadadii waqti kastaba loo maro marka biyaha ama waqtiga daadku soconayo waa laga yaabaa dhexdu inay yar dhibaato tahay laakiin dhagax baa ka hooseeya markuu daadku qaado waa la marayaa sideeda ilaa hadda waxaynu ku guulaysanay in gaadhiga yar iminka inala socdo waa aragtaan inuu soo maro
oo uu maro gaadiidku habeen iyo maalinba dee ay maraan. waddadan goban iyo xeel oo muddo 2 sannadooda ay shacbiga Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland iyo waliba maamulka Berbera ay ku guda jireen sidii ay wax uga qaban lahaayeen ayaa waxa ay tahay wadooyin isku xidha degmooyinka Berbera, Xagal, Laasciile iyo waliba ilaa iyo Raaribuul. waa waddo dhib badan, waa waddo intii hore u daawatay horey uga aragteen duruufaheeda barnaamij loogu dabagac daray dal qarsoon iyo duruufaha ku xeeran dadku nool. waddadan guban iyo xeeb ayaa waxa ay tahay waddo si weyn dhibaato ugu haysta mujtamaca ku nool deegaanada bariga gobolka Saaxil ama magaalada Berbera. haddaba goobtan aynu taagannahay waa goobtii ugu adkayd ee waddadaasi guban iyo xeeb, waa toga biyo guure. waxaad indhihiina ku arkaysaan waxqabadka ay shacbiga Soomaaliland ay ka geysteen waddadaasi, halkaasi oo aad arkaysaan inuu gaadiidku si dhib yar u marayo iyadoo waddadani markii hore aan si sahal lagu mari jirin. haddaba barnaamijkaasi aanu safarkan idinku soo bandhigi doono waxqabadka laga qabtay waddadaasi guban iyo xeeb ayaa waxaad indhihiina ku arki doontaan iyadoo goob walba oo aanu marayno aanu idin tusi doono magaceeda iyo waxa ka qabsoomay. safarkan ayaa waxa ku guda jira wafdi ballaaran oo hogaaminayo waddada guddida shacabka ah ee gacanta ku haysa waddadaasi guban iyo xeeb oo ay ka kooban yihiin gudoomiyaha gobolka Saaxil, duqa magaalada Berbera iyo waliba mas'uuliyiin kala duwan, iyadoo qayb ka mid warbaahinta Soomaaliland gaar ahaan kuwa qarankuna ay ku lamaan yihiin wafdigaasi. waxqabadka u qoobsoomay waddadani kuma eka oo keliya toga biyo guure iyo taageerada shacabka, balse waxa ka mid a dhinacyada gacanta ka geystay qaar ka mid ah hay'adaha samafalka iyo kuwa waddaniga ah. hay-adda UNDP oo kaashanaysa hay-adda waddaniga ah ee Hafayoko ayaa waxay xal waafiya u raadinayaan bannaanka Xiirane oo ah dooxa bacaada oo caqabad weyn ku ahayd gaadiidka. dooxa Xiirane waxa la dhigay waddo carratuura oo lagu xafiday gamyan hakinaya ciidda guurguuraysa ee difaaca u noqon karta waddadaasi amaba hakisay dariiqan. waa kan Ibraahim Xariir oo ah mas'uul ka tirsan ururka Hafayoko oo ka hadlaya doorka ay ka qaateen waddadaasi iyo waxqabadka ka qabsoomay dooxada Xiirane. hawsha halkan markii aanu ka bilownay waxa aanu bilownay ama markii aanu bilownay baldoosar mooyaane wax dhaqaaqa oo guuxo oo kale oo noo dhaqaaqay ma jirin. shay walbaanu keennay way degtay, wixii kale la keenaaba waa degeen. baldoosar ayaa ciiddii xaadhay, iyada ayaa maxaan dhahday markii carrakaawadii la keenayna ilaa loodhka la dhigo ay riixdo, maxaan idhaahdaa baldoosartu ay riixdo, mid kale lama dhigay. okay, waxaanu samaynay waddooyin gala buurta iyo dhulkii laga goynayay magaranaysa carrakaawada iyo dhulkii laga soo gurayay dhagaxa. waxaanu samaynay waddooyin gaara oo mid walba carrakaawo la dhigay si ay u fududaato maxaan idhaahdaa in ay dee agabkii la keeno, materiaalkii buurta yaallay in la keeno meesha. 1 kilomitir ayay inta sida rasmiga halkan wax looga qabtay ay tahay, inkastoo labada dhinacba 250 mitir aanu kaga darnay. hawshaa waxaa inaga caawisay oo ku darsatay waddadan hay-adda UNDP. Hafayokana waxay tidhi fuliya. waxaanu ugu nimi halkan guddigii horumarinta waddada ee ka shaqaynaysa meesha ayaanu halkan ugu nimi. haddaanaan iyada helinna UNDP iyo Hafayoko iyo cid kale toona waxmay dhaqaajiseen. macdaadkii uu ururku lahaa ee halkaa loogu yimi ayaa waxaa soo carrakaawaa dhigay oo waddadaa baneeyey oo xaadhay oo riixay oo sidaa aynu imika ku taagan.
laga yimaado biyo guure dhibaatadiisii aynu soo dhaafnay iyo xiiranley meesha kale saddexaad ee dhibka ugu weyn ee ka horaysa tuulo aynu iminka geli doono magab la yidhaahdo farax jaleefan bay ahayd. farax jaleefan waad aragtaan siday maanta tahay buundaa ka samaysan irish crossinga ama jiiftaa. halkan aynu taagannahay waxa weeyaan togii ama dooxii farax jaleefan tuulada magab ayuu agteeda yahay. meelihii saddexaad ee ugu dhibta badnaa ayuu ka mid yahay. waxaanu ka mid yahay meelaha ay hay'adda UNDP ay maalgelisay ama ay ku bixisay lacagta. 3 qaybood ayuu ka kooban yahay mashruucaasi. mashruuca waxaa la yidhaahdaa Water and Road Project of Berbera maxaan dhahdaa Eastern Berbera. marka xeerana waynu soo aragnay. kanina waxa weeye farax jaleefan guud ahaan marka inta UNDP ay bixisay la isu geeyo gaabiyanka iyo carrakaawada la dhigay farax jaleefan waxaan leeyahay xiiranle iyo bridge-ka Irish bridge-ka hadda taagannahay iyo ceelka magab ee la sameeyey intaas oo la isku daro UNDP waxay inoogu deeqday oo ay ku bixisay lacag gaadhaysa $82,000 ayaa maxaan dhahdaa lacagta ay UNDP mashruucan ku bixisay galay wadada yaa ay tahay inta aynu soo marnay waa temporary u baahan in la ilaashado oo mar walba gacanta lagu hayo. laakiin halkan aynu taagannahay waxa weeyaan bridge bermana oo hoos u qodan 2 mitir ballaciisu yahay 6 mitir dhererkiisuna uu yahay 50 mitir. labada dacalna waxa laga dhigay 2 carrakaawo oo ay midina tahay 150 mitir midina ay tahay 250 mitir. intaas oo ay haafayoko iyo guddiga horumarinta wadadu ay isu geeyeen ayadoo looga faa'iideystay macdaadkii mashruuca uu lahaa ururku. deegaankan waxaa iyaguna qayladhaanta lagu furayo ee lagu gurmadayo shacabkan ka qayb qaatay hay-adaha qaramada midoobay ee miinasaarka oo ay lama degaan kulul xilligani ka guda jireen howlgal miina baadhisa oo hormuud u ahayd hay-adda miina baadhka ee Hallotaras kaasi oo ka socday deegaanka u dhexeeya dooxa xiirana ee aan soo sheegnay iyo tuulada magab oo ilaa iyo 20 kilomitir dhinaca bari ka xigta toga biyo guure. haddaba mushkiladda miinadu waa dulin kale oo haysta shacbigan kaasi oo ay aastay dowladdii hore ee waddanka Soomaaliya waxaanay tallaabooyinkani waxqabad gacan ka helayaan shacbiga deegaankaasi magab. maalintii ugu horeysay UNDP waxa loo wargeliyay oo riboodka loo gudbiyay in ilaa halka miina ku jirto. okay markiiba waxa la inform gareeyay Hallotaras si dhaga nugul bay uga hawl gashay. shaqadiina way bilowday waanay waday muddo imika waxa haddana waa wadaa. magacaygu waxa weeye maxamed faarax waxa weeyaan waxaan anigu gudoomiyihii tuulada tan magab la yahdo haddii aan ka warramo tuulada iyo axwaasheeda marka hore waa lagu nabad qaba waa lagu nimcaysay. waxaan taa kadib deegaankan haddii aanu nahay meesha markii hore waqti doora ayaanu anigu deegaan ku ahay meesha way xidhnayd. anigu waxaan ahay ninka 20 kilomitir baan u jiraa 20 kilomitir baan magaalada u jiraa. wadada waxaan ninka baabuurka isagoo reerkiisu raashinka halka ayaa baabuur waayay yacni nin walba yiri war anigu ma marayo meeshan wada maahay lacagtii kale liga kare waay. marka waxa weey ilaahay baa mahad hay-adaha gacmaha ka geystay wadadaasi ee gurmadkooda ku yimi halkaasi kuma eka oo kaliya kuwa qaramada midoobay balse shirkadaha wadaniga ayaa iyaguna aan ka marnayn waxqabadka wadadaasi. waa kan maxamuud xaaji ibraahim waa maareeyaha Telesom ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer. shirkadda Telesom runtii kaalmo ayay ka geysatay isgaarsiintu qayb ka tahay waxqabadka bulshada. halka kan feeriyo ayaa uu saaran yahay towerkii Telesom
dhinacan kale gumbur buuxisaa inaga saaran iminka fadhigaynu ku hadlaynaa haddii aan taa la samayn lahayn dee way ka khatarsan tahay waddadu iyo isgaadhsiintu labadaasi qaar kala maarmo maaha maanta waxaaba laga yaabaa haddaan isgaadhsiini jirto in loogu yeedhi karo o la odhan karo war gawaadhi noo soo dira war noo soo gurmada laakiin bal waxa qiyaastaan iyadoo waddaduna sidaa tahay isgaadhsiinina aanay jirin waxaanu leenahay kaalmana shirikaddu way ka geysatay $20,000 bay bixisay waxaanay ka mid ahaayeen ciddii ugu horreysay ee tabaruca dhiibtay lafdhabarta ugu culus ee shaqada socota haatan ee waddadani waxa ay ku tiirsan tahay qalab macdaada xooggan oo ah qalabka waddooyinka oo helistiisa uu ka dhashay qaadhaan laga ururiyey shacabka iyo shirkadaha dalka gaar ahaana gobollada togdheer saaxil iyo maroodijeex kaasi oo dhiirigeliyey inay qabsoomaan amaba ay sahlanaadaan caqabado badan oo aan xalkooda la hungureeyeen qalabkaasi oo aanu kooxda wariyayaasha iyo aanu ka mid ahayn xubnaha safarka ku jiray ee telefishinka qaranka iyo raadiyo hargeysa waxa aanu ku sii maray isaga oo shaqo ka wada deegaanka oo ah goobaha ay waddadu haatan marayso intii aan ku guda jiray safarkayaga waxaan la ilaabi karin dareenka yadidiilada iyo jawiga furan ee ka muuqday shacabka tuulooyinka iyo reer guuraaga aanu ku dhaafaynay goobaha shaqada waddadaasi ka socotay kuwaas ku faraxsanaa inay helaan wehel la qaybsada mushkiladda taagan iyo weliba inay gurmad ka helaan shacbigooda ee badajiyey saba ka jimcoon midooda bal aan eegno dareemada dadkaasi aanu ku dhaafaynay waddada amaba goobaha ay dareenkeeda waxaan arkaa si wanaagsan bay u shaqaynaysaa dee waa sidaa si wanaagsan dee dhibaato waxay dabooleysaa intaa imika la sameeyey dhibaato badan bay dabooleysaa imika inta hadheena way fara badan tahay dhibaatadeedu waxa aan u arkaa baahidii ka jiri jirtay in badan gubanka si fiican in wax looga qabanayo hadda wax socda sidaa darteed in dadku aad iyo aad haddii alla idmaayo u wada diyaargarooanta iyo darhalika badan baa dadku dhibaato iyo halaag iyo haraad iyo gaajo kala kulmay waddada insha allahu tacaala waxaan rajeynaya hadday sii socoto in dadku wax badan ay doonaan waxaan kala xusuustaa sida runtii xilliyada xagaagii waxaa dhacda in laga qaado xagaa walba meyd waayo khaasatan dadka waalwaalan iyo dadka socotada way dhacdaa degmadan waxay ka mid tahay degmooyinka ka tirsan gobolka saaxil haddana nolol maalmeedkeedii wadda xumo awgeed wuxuu ku xurmay burco marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in adeegayagu noqdo gobolka saaxil haddii waddadaas xabsanahay kii 14 habeen oo dhixiyay baan ahay 14 habeen kii awrka soo dhixi jiray berbera aan wahay haddana saacada gudaheed inta la sameeyay ku soo maray soo ma garanin marka aad iyo aad wax way isbedelan wanaag aad iyo aad imika rajaynayaa kii loo aay lahaa inuu ku socdo nayaayirka iyo waxqabadka la gaadhay ee waddadan guban iyo xeeb waxaa iyaduna barbartaal goobaha ay marto waddadani ee welidihin ee aanay shaqadu gaadhin kuwaasi oo intooda badan isugu jira dooxyo bacaada togag qawyo aan si sahlin looga gudbi karin kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen banka goobaare oo ah ban caan ah oo saxaro ah oo ah goob lagu arko bacaad guurguura iyo ciiddiisa oo socota dooxyada raracad awrqari bohosha baabuurka farta marohda iyo kuwo kale dhammaantood waa togog bacaad iyo goobo aanay baabuurtu si sahlan dhexdiisa u mari karin ama dhexdooda u mari karin dee axmed xaaji xasan cawood baa la yidhaahaa aniga waxaan ka mid ahay guddida muham ee dariiqa kan ase guddi ahaan
hadda rabta inay maamusho oo ay gaadhsiiso meesha aynu gedigan la wada doonayno marka anigu waxaa halkan aan soo maray aniga guddidu waxaan u malaynayaa 2 sano ka hor soo ma ahayn 2 sano ka hor ayaan halkan soo maray annagoo 5 gaari waxay ahayd assessmentkii ugu horreeyay waa dariiqo xaguu marayaa xagee laga duwayaa muxuu inooga baahan yahay shaqo marka gaadhiga annagoo 5 gaari ayaanu marka xaajiyadii oo noo siday batroolka oo noo siday biyaha halka raracad ee horteedna ah kaga dhaqaaqnay sababtoo ah ciidii bay noo mari weyday markii aanu isniri gaariga ka saara meeshana motorkii waa duqeeyey markaas waxay nagu khasabtay inaanu wax laalay wixii biyo saaraa iyo foostooyinkii saaraa aanu 4 gaari kale u qaybino dee 4-5 habeen waa noo hadheen oo aanu rabnay inaanu meesha assessmentkii ka soo dhamayno marka gidigii waa wada mahadsantiin maanta meesha aynu soo gaadhnay gaarigii meeshii baanu kaga tagnay oo injineeraal looga soo diray Hargeysa la berbera oo meeshii wiish kaga qaaday noogu adkayd ee ka mid ah goobaha waddada ee aanay shaqadu gaadhin intii aanu ku guda jiray safarkayaga waxay ahayd dooxyada raracad iyo awrqari waxaanu ku hakanay xilligaasi annaga iyo kooxdii safarka togaasi oo gabi ahaanba gaadiidkii aanu wadanay intiisii badnaa oo u badnayd gaadiidka 4-wheel drive-ka ee hungureeyay deegaankaasi muddo dhowr saacadood gaadhaysa halkaasi oo aanu ku dhaameen inta badan gaadiidkii aanu wadanay waxaana caabiyey dooxyo bacaada oo u saamixi waayey inay sii wataan gaadiidku socodkooda waxaanu kooxdayadii safarka ku mashquulay intayadii badnayd inaanu riixno amaba aanu qofno gaadiidka aanu gacan siino wadayaasha aan xariifka ku ahayn marista wadda xeebeedyada balse waxa ay xaaladdu sii xumaatay kolkii uu halkaasi nagaga xumaaday oo naga fadhiistay baabuur gacan siinayay gaadiidka kale ee ku qarqma bacaadka oo uu watay barasaabka amaba guddoomiyaha gobolka saaxil Fahmi Cabdi Bidaa kaasi oo ahaa mas'uulka ugu sarreeya ee wafdigaasi amaba kooxda aanu ku lamaanayn waxaanu halkaasi kaga dhaqaaqnay goobtaasi bohosha baabuurka oo ka mid ah meelaha inta badan lagaga tago gaadiidka jilicsan baabuurkaasi uu lahaa barasaabkaasi gobolka saaxil meelaha ay marayso waddadani waxaa horey loogu sameeyey qiimayn iyo jaangooyin ku qotonta halka ugu sahlan ee la mari karo iyo kharashka ugu yar ee ku bixi kara waddadaasi kaasi oo ay hore u dejiyeen khubaro injineer ah oo aqoon u leh waddooyinka balse qaybta ugu culus dhinaca farsamada ayaa waxa ay tahay goobta loo yaqaano sanka biriska oo ka mid ah meelaha aan la gaadhin ee aan shaqadu weli dul tegin waana tuurar iyo buuro ciida oo baabuurku aanu si sahlan uga gudbi karin iyadoo la fuulayo ama la fananayo buuro dheer iyo weliba dooxo ciida oo taxan kaasi oo sii taxan ilaa iyo toga degmada Xagal oo qiyaas ahaan noqon karta 120 kilomitir marka laga hadlayo dhererka waddada la wado taasi oo ah ciid weyn baabuurku ku hafanayo bogcadahan aanu soo xusnayna waxa ay tahay caqabadaha ugu culus ee shaqadu harsan tahay ee waddada Guban iyo Xeeb iyadoo aan weli la gaadhin halkaasi waa kan injineer Faarax Xuseen oo mar kale ka hadlaya caqabadaha sugaya shacabka Somaliland ee iyagu ku taxalluqa amaba si toos ah ula socda qaaraanka iyo gacanta iyo gacansiinta waddadaasi waxaynu dul taagannahay ciidii bacaadka ahayd ee buura ahayd ee sanka biriska halkan aniga iga dambaysa waxa weeyaan waa jihadii Xagaleed iyo Lasciidle halka iga horeysaana waxa weeyaan waa jihadii Berbera waa buurta ama waa meesha halka laga talaabay ee leeyahay sanka biriska ciidaasi waa ciida gaadiidka caqabada weyn ku ah ee marnaba aan laga gudbi karaynin gaarigii aan 4-wheel ahayn kama bixi karo dhibaatooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay
ee ku gudban waddadan tanaynu taagannahay oo sanka biriska ah waxaa ku xiga farta marohda oo tog ah farta marohduna waa tog aan halkan ka fogayn oo xagga berbere naga xiga waxaa kaloo ku sii xiga bahosha baabuurka oo ah halkii bahash suldaanka baabuurkiisii liqday beri hore ee lagu furfuray lagaga tegey saddexdaa caqabadood waxaa ka dambeeya oo ka sii dambeeya meesha raracad la yidhaahdo oo iyaduna meelaha aad iyo aad iyo aad ugu badan ah oo aanu maanta kaga nimi baabuurtii badankoodii qaar aanu kaga tegi gaadhay marka waxaa ku xiga oo ku sii xiga waddada halkaa raracadku waxaa ku sii xiga awrqari iyo raracad way kala dambeeyaan iyaguna waa 3 meelood intaas kale ee waddadu way ka sahlan tahay laakiin marka loo eego qayb waxa ugu xun qaybtan iminka aanu taagannahay ee sanka biriska iyo xagal inta u dhaxaysa dooxada weyneyd ee xagal ka sokaysa ayaa ugu sii daran oo dhul ahaan ugu xun inta kalena waa goobo sida isu daba jooga oo ilaa dhowr iyo 10 marka la dhaafo xagal la dhaafana togag way jiraan laakiin way ka sahlan tahay markaan soo koobo caqabada ugu weyn ee waddadani waxay ka taagan tahay xagal iyo biyo guura inta u dhaxaysa lagu wada masooba hadumaan ku laban yahay dadku malama yeeshee adduunyada lagu wada masooba hadumaan ku laban yahay dadku malama yeeshee midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulaaye midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulaaye muruqiina maalo dhulka mira ku beero muruqiina maalo dhulka mira ku beero macdanta dahabka muujiya wanaagahay muujiya